بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا waxaan rabaa inaan ka hadlo hadallada hadda soo baxaayo ama ragga qaarkood oo siyaasiyiinta u ololeynaya inay doorasho dadban ay dhacdo runtii doorashada dadban waa mushkilad hortaagan qarannimada nabadda dalka Soomaaliya doorashada dadban dalka waxay ka dhigtay inay hoggaanka qabtaan dad lacag ku yimid ama dal shisheeye ay dabada ka wadaan doorashada dadban waxay hor istaagtay dadkii wanaagsanaa aqoon-yahanada ahaa oo xilka waddanka qaban lahaa doorashada dadban waxay keentay aqal saroo dadbanay keentay oo hadda mashaakilkiisa taagan doorashada dadban waxay shacabka muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed u diiday inay wax doortaan ama la doorto sida ku cad dastuurka dalka doorashada dadban waxay dalka ka dhigaysaa mar walbaba oo la soo dhaafay maxaa la lahay in laba beelood hoggaankii dalka ay qabtaan inta kale ay noqdaan second class citizen markan waxaan rabnaa runtii waxaan dareemaynaa nin oo mas-uulka ugu sareeya inuu arrintaas u ololeynayo war ilaahan ku dhaarshay ummaddan waxaa la sameeyey guddi doorashaa wuxuu soo shaqeeyey in doorasho hal cod iyo hal qof ay dhacdo waxaa la hor keenay baarlamaankii labadiisa aqal ah waxaa loo geeyey maxaa la lahay madaxweynihii maalintii madaxweynaha habeenkii uu labada aqal maxaa la lahay hortooda uu ku akhrinayo waxaa akhriyey ra-iisul wasaaraha akhriyey haddaad xasuusataan in doorasho hal cod iyo hal qof ay dhacdo waddanka haddii waxay ka dambeeyeen doorasho dadban aysan dhicaynin qalinkuu ku jiiday madaxweynihii markan raggii maalintaas goobjoog ahaa oo aad dareemaysid ra-iisul wasaarihii xataa akhriyey iyo mas-uuliyiin kale inay hadda u ololeynayaan inay doorasho dadban ay dhacdo waxaa waaye doorasho dadban haddaa aragtaan dhibkiina soo gaaray oo hadda Soomaali maxaa la lahay gadaal ay ugu dhacday waxaa keenay doorashadaas dadban waa dadaa $1,200,000 oo xildhibaanimo ku soo galay waxa waaye ummaddan waxay rabtaa hal cod iyo hal qof ay rabtaa ha qaadato 13 bilood ha qaadato 2 sano dhib ma laha laakiin doorasho dadbanaa la soo celinaa war dadkii ergooyinkii dadka doortay xataa waxa waaye badanaa hadda ma noolo badanaa waaba la dilib markan waddankan waxaa loogu bixi karaa in amni la helo doorasho xalaal hal cod iyo hal qof ay dhacdo intii laga gaaraayo waxa waaye hadday doorasho dadban la soo celiyo nidaamkii waddankan iyo systemkii waxaa dhumaayo maxaa la lahay qarannimada Soomaaliyeed aniga taasaan ku talinaa waddankan waxaan rabnaa in hal cod iyo hal qof ay doorasho ay dhacdo sida dastuurka uu qabo waxaana laga sugaa guddigii doorashadu waxay horgeeyeen baarlamaankay horgeeyeen baarlamaankii u fadhiisanaya labadiisa aqal ayagaa go-aan ka gaaraya aniga arrintaasaan hadda soo jeedinaa doorasho dadban ummaddan Soomaaliya hadda waxa waayaa loo horseedin raggaa hadda jawaabkooda buuxo oo u ololeynaya inay madaxweyne noqdaan aan ognahay lacagtaas ay ku ololeynayaan meeshay ka keeneen markaan waxaan leeyahay laga dambeeyo madaxweynaha wuu saxiixay doorasho hal cod iyo hal qof ah baarlamaankii hortaallaa guddigii doorashadaa geeyey hal la sugo annaga ma rabno doorashadii dadbaneedoo ummadda laisku dhibaateynayay oo dhibkii ka dhacay og tihiin wax hadda gadaal noo dhigana saas waa laga soo gudbay xilli oo warlords ay wax magacaabaan waa laga soo gudbay xilli qabiil uu wax magacaabo waa laga soo gudbay xilli malaaq uu wax qoro waa laga soo gudbay ergooyinkii Soomaali badbaadada hadday la rabto waxa waaye annaga haddii doorasho dadban ay dhacdo waxaan u joognaa inaan arrintaas aan ka dhiidhinno aan ka bannaan baxno ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waa dareemi kartaan doorasho dadban dadka xildhibaanada hadda soo noqday macnaha fiiriyaba aqoontooda fiiriya waxa waaye dad macnaha ummaddan badbaadin kara xataa maaha golahan wasiirada maalintii ra-iisul wasaaraha oo xukuumadda uu keenaya dadkii diidiyaan ka mid ahaani dadka uu ra-iisul wasaaraha soo qortay dhammaantooda 15 qof aan ku diidnay xukuumaddiisi aan ka mid ahaani xaqiiqdan waa dareemayay dadka annaga xataa oo noo matalayay koonfur galbeed oo markaas golahaas wasiirada lagu soo daray inaysan ahayn dad tayo iyo aqoon leh markaan annaga waxa waaye xuraan nahay waa hadlaynaa intaan nool nahay waxa waaye xildhibaana ahay
waxyaalaha sharci daradan diidaa shirar baa dhacay hadda maxaa la dhahay waxaan maqlaynaa hadallo ah doorasho dadban taasaan ka soo horjeeda aniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu